السلام الله عليكم daawadayaal Ramadaan Kariim meel kasta oo idin daafaha caalamka ka joogtaan halkani waa Ilays TV waxaana la soo gaaray xilliyadii aan hawada ku wada kulmi jirnay daawadayaal waxyaabahan habeenkan caawa Ilays TV idinku haynana waxa kamid ah qaybtii saddexaad waraysiga aan la yeelanay ku xigeenka hoggaanka arrimaha abaabulka iyo jahliyadka mudane Daahir Xasan Guuleed waxa kale oo ku daawan doontaan waraysi aan la yeelanay habwaanad kamid ah gabdhaha reer Ogaadeniya intaasi oo dhan ka horse waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay iyo wariye Galad Xasan wararka naga soo gaaraya xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa sheegaya dagaalo maalmihii la soo dhaafay dhex maray ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo kuwa gumaysiga Itoobiya in lagu naafeeyay ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka hawaarinta ee ay ku adeegtaan wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo 3 dagaal oo dhex maray soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo kuwa gumaysiga Itoobiya intooda badan ka dhacay gobolka Nogbeed in si isku mid ah khasaare lixaad loogu gaarsiiyay ciidamadii wayaanaha iyo maleeshiyaadkii ay ku shaqaysanayeen ee hawaarinta dagaal qaraar oo ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhex maray deegaanka Anfi oo ka tirsan degmada Xamaro waxa ciidamada wayaanaha 5tii bishan laga dilay 13 askari sidoo kale waxa laga dhaawacay 25 waxaana ciidamada gumaysiga Itoobiya dagaalkaasi laga furtay hub iyo waliba rasaas tiro badan sidoo kale ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa waxa dagaal ka dhacay duleedka degmada Dhagaxmadow lagu gaarsiiyay khasaare lixaad waxaana ciidamada qalabka sida ee jawxa u hirgashay in gabi ahaanba ay la wareegaan fariisin ay si kooban ciidamada wayaanuhu uga sameysteen magaalada Dhagaxmadow ee gobolka Jarareed ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ay wadeen guluf dagaal iyo wacyi gelin bulsho oo ay isku dhex wadeen waxayna soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya si laba jibaareen hawlgallada kala duwan ee guud ahaanba shacabka Ogaadeniya loogu diyaarinayo sidii looga dulqaadi lahaa heeriyada gumaysiga qadmuun ee Abasiiniya soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa waxa hawlgalladooda ay ku sii ballaariyeen inta badan gobolada kala duwan ee wadanka Ogaadeniya waxaana haatan dardargelin xoog leh ay ka socotaa gobolada Shabeelle iyo Qoraxay halkaas oo soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ay isku dhex wadaan abaabulka iyo wacyi gelinta bulsho ee ay maalmihii la soo dhaafay wadeen iyo sidoo kale gulufka dagaal ee ay la beegsanayaan fadhiisimada ciidamada wayaanuhu ay ku leeyihiin gobolada kala duwan ee wadanka Ogaadeniya ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka loo yaqaan hawaarinta ayaa waxa haatan ay ku aruureen fariisimaha ay ku leeyihiin magaalooyinka kala duwan ee wadanka Ogaadeniya waxaana isaga carareen inta badan fariisimadii ay ku lahaayeen deegaamada ka baxsan degmooyinka waaweyn ee wadanka Ogaadeniya ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka hawaarinta loo yaqaan ayaa markaste oo looga italroonado goobaha dagaalka waxa carada ay kula dhacaan dadka shacabka waxaana dhibaatooyin iyo tacadiyo joogto ah ay ka geystaan deegaamada kala duwan ee inta badan uu dagaalku ka dhaco ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka loo yaqaan hawaarinta ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa xadgudubyo baaxad ay ka geysteen gobolada Nogob iyo waliba gobolka Jarar halkaasi oo boqolaal shacab la soo sheegayo in ay qaarna xabsiga u taxaabeen qaar kalena ay tacadiyo kala duwan u geysteen degmooyinka Xamaro iyo waliba Cayuun ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada gumaysiga Itoobiya ay dad badan oo shacab xabsiga u taxaabeen kuwaasi oo ay la xiriirinayaan dagaalkii khasaaraha lixaad kale loogu geystay ee ka dhacay deegaanka Anfi ee degmada Xamaro hoostaga
sida warkaanu ku helay magaalada fiiq ee xarunta gobolka Nogbeed ayaa waxa la geeyay dad tiro badan oo shacab kuwaasi oo laga aruuriyay magaalada Xamaro iyo deegaamada ku xeeran waxaana dadkaasi lagu eedeynayaa in ay ku lug lahaayeen amaba ay ka dambeeyeen dagaalkii lagu qaaday ciidamada gumaysiga Itoobiya ee ka dhacay deegaanka Anfitaasi oo caadada ciidamada gumaysiga Itoobiya markastaba ay sameeyaan kadib marka looga talroonado goobaha dagaalka dadkan shacabka ah ayaa lagu soo waramayaa qaar badan oo kamid ah in loo geystay tacadi iyo waliba gawood fal fool xun oo ay kula kaceen ciidamada gumaysiga Itoobiya intii ay ciidamada wayaanuhu dadkaasi kula kacayeen hawlgalkii ay ku aruurinayeen amaba ay ku xidhxidhayeen ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka hawaarinta ayaa sidoo kale waxa ay dad shacab ku xidhxidheen magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed kuwaasi oo iyaga naftirkooda lagu eedeynayo inay ka hor yimaadeen awaamiir ka soo baxday maamulka sheega gobolka Jarareed ee magaalada Dhagaxbuur fadhigiisu uu yahay isla wararkii wadanka Ogaadeniya ayaynu ku guda jiraa ee maleeshiyaad tiro badan oo ka tirsan kuwa hawaarinta loo yaqaan ayaa lagu soo waramayaa in maalmihii ugu dambeeyay ay ka baxsadeen fariisimada iyo goobihii ay ku sugnaayeen ee ay ciidamada wayaanaha ku wardiyeynayeen warku waxa uu sheegayaa in maleeshiyaad tiro badan ay afartii maalmood ee la soo dhaafay ka firxadeen goobihii ama fariisimadii ay ku sugnaayeen waxaana arintani ka dambeysay kadib dhibaatooyin kala duwan oo la soo dirsay maleeshiyaadka hawaarinta ee ay xabada isaga dhigaan ciidamada gumaysiga Itoobiya warku waxa uu sheegayaa in magaalada Daraad ay ka baxsadeen ilaa iyo inta la xaqiijiyay 13 kamid ah maleeshiyaadka hawaarinta halka sidoo kalena magaalada Birqod ay ka baxsadeen maleeshiyaad tiro badan kuwaasi oo laba goor oo isku xigta ka guureeyay fariisinkii ay ku lahaayeen magaalada Birqod magaalada Galaalshe ayaa sidoo kale maleeshiyaadka hawaarinta waxa la xaqiijiyay inay ka baxsadeen 11 kamid ah maleeshiyaadkaasi waxaana baxsadka maleeshiyaadkani si laba jibaaray khilaaf xoogan oo toddobaadyadii la soo dhaafay maleeshiyaadkaasi u dhaxeeyay sidoo kale mushaar la'aanta iyo dhaqaale xumada soo wajahday maleeshiyaadkaasi ayaa waxa qayb ay ka noqotay kala cararka iyo baxsadka maleeshiyaadka hawaarintu oo indhowaalaba soo socday balse haatan si xoogaystay maleeshiyaadka hawaarinta ee baxsaday ayaa waxa laga daba diray maleeshiyaad kala duwan si loo soo qabto balse waxa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in aysan jirin wax maleeshiyaada oo gacanta lagu soo dhigay kuwaasi oo dhammaanba sida warka aanu ku helay ka gudbay xadka uu dalka Soomaaliya la wadaago wadanka Ogaadeniya halka aad warkaasi kala socotaan waa Ilaysa TV wararka naga soo gaaraya magaalada Waday ee dhulka Oromaduna waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada sirdoonka ee maamulka wayaanaha kaasi oo xasuuq bahalnimo ah marar kala duwan ka geystay magaalada Waday iyo nawaaxigeeda sargaalkani oo ka soo jeeday qoomiyadda Oromada laguna magacaabo Cabdi Idris ayaa waxa warku uu sheegayaa in toddobaadkii la soo dhaafay uu isagu gacantiisa ku dilay 6 kamid ah dhalinyarada ururka Oromada ee qiiro loo yaqaano kaasi oo kamid ah ururada sida weyn uga soo horjeeda gumaysiga Itoobiya ee ay leeyihiin dhalinyarada qoomiyadda Oromada oo iyagu hormuud u ahaa kacdoonka looga soo horjeedo taliska jabhadda TPLF ayaa la aaminsan yahay in ay ka dambeeyeen dilka Cabdi Idris oo ku caanbaxay xasuuqa iyo waliba gaboodfalada joogtada ee lagu hayay dhalinyarada qoomiyadda Oromada ee kacdoonka ku guda jiray sargaalkani ayaa meydkiisa waxa la dhigay bartamaha magaalada Waday oo degmo ka tirsan maamulka dhulka Oromada hoostaga wararka naga soo gaaraya dhinaca iyo dhulka Axmaaraduna waxa ay sheegayaan in ciidamada gumaysiga Itoobiya cagta lagu mariyay dagaal lixaad leh oo maalmihii la soo dhaafay dhexmarayay ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo kuwa jabhadda Gimbood 7
wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay dagaalada u dhaxeeya ciidamada wayaanaha iyo kuwa jabhadda Gimbood 7 ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada wayaanaha khasaarihii ugu ballaadhnaa uu ka gaaray dagaaladaasi waxaana warku uu sheegayaa in ka badan 150 askari lagu dilay dagaalada maalmihii la soo dhaafay dhexmarayay ciidamada wayaanaha iyo kuwa jabhadda Gimbood 7 ciidamada wayaanaha ee khasaaraha ugu badan lagu geystay dagaalada toddobaadyadii la soo dhaafay dhexmarayay iyaga iyo kuwa jabhadda Gimbood 7 ayaa waxa warku uu sheegayaa in ay ka soo gudbeen dhinaca gudaha dalka Suudaan halkaasi oo ay ciidamada wayaanuhu toddobaadyadii la soo dhaafay dagaal kaga soo qaadayeen deegaamada waqooyi ee gobolka Gondar oo isagu xad dheer la leh dalkaasi Suudaan ciidamada gumaysiga Itoobiya ee khasaaraha loo geystay ayaa waxa warku uu sheegayaa in ay dib ugu noqdeen gudaha dalka Suudaan halkaasi oo dhaawacyadooda loo daabulay warkii oo aad kala socoteen Ilayse TV akhyaarta hawada nagala socotay intaasi ayuu caawa naga dhan yahay mahadsanid galad xasan daawadayaal intaasi aan kaga gudubna war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay haatan aan idinku soo dhaweeyo waraysi aan la yeelanay abwaanad kamid ah gabdhaha reer Ogaadeniya oo magaceeda la yiraahdo Nimco Sheekh Maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنكم دوهي وحن سلام يا دمان أمد الإسلام كأ كارهان وحي أن سبشكت أمد الرير وقاعدين يملك العالم ككتشوجان إيه نفتريا شغلة كسيدا نمعة واحدة قبل دربات هاي بالمنوش إيه كرتا مركي كوجه رئيسي استري واتقبي كرتا يعني إلا إلا بدو كن يو طبعا كي قلبا سوجان توانون عرين تري وأنا إيسو أنت أسون سو وذي حتى أنا ما شاء الله مال في عمي مرسا
sidoo kale noocan baad xusuusan kartaa bal gabayga ugu horeeyay ee aad tirisay inta badan gabayada horta maxay ku saabsan yihiin gabayadoodu waxay ku saabsan yihiin suugaan halgameed maadaama aanan hadda wax badan sii aqoonin oo da-deyduna lagaba yaabo inaan weli gabayadu kuu soo socdaan baan isleeyahay iyo waagii kuu fiicnaan lahayn ama waayo arag aad noqon lahayd waayo arag miihi da-deyduna waxaan dhisay 1994 ilaa iyo intaan alxamdulillahi rabbil caalamiin laakiin hadda waxaa uun aragtidaydu waxay leedahay guubaabada ummadda reer Ogaadeenaya iyo dhiirigelintooda uma ka gabiyaa laakiin insha Allah waan sugayaa inaan wax ka sii barana aan tiriyo waan gartay bal waxaad noo soo qabataa gabayadaada gabay ka mid ah oo aad leedahay mataqaanaa halkan ku saabsan gabay waxaan soo qabanayaa maanta magaciisa la dhaho hambalyo uuna hambalyeynay ummadda reer Ogaadeenaya waliba inta markaas wada joogtay ee meel isugu timaaday waan gartay bal gabaygaas waxaan naga maqashay هذا قباي برياها وانيقي وغنداعي هوسي ما هبينين وانيقي قاهو لبناي هكال لما ربين وايا هايقا هوس مراي هورارتو واسيندو وقتيقو كوغو هاليلاي ميلان اوهورمانا نارق من تكورتو hambalyo salaaniyo waxaan hadiyad gaadhsiiyo halkastoo way joogaan waxaan ogan diraa heeska bulshadayda wadaheegan baan ugu horreysiine oo heer Ogaadeenayaan hooya leeyahay ayadoo haweenkiyo raggaba aan la kala holin oy ugu horeeyaan mujtamacgu macahinsaystay wayaanaha kuwa heerayee hore caleebsiiyey hal ilaahay mooye bulshadana wax kala haynin hal ilaahay mooye bulshadana wax kala haynin danta guud kuwa noo hayiyo hawsha madaxdeeda halwadeenka jooxaad niyadu way ku hirantaye hambalyiyo salaan iyo ducaba wan huwinayaye halabuurka iyo maansadan ficil higoonayo waa hadiyadee behay wato waan cid kala hayne hoodiyo nasiibiyo haddii hiba la ii siiyey hagran maaya suuganta oo waan idin horiye iga hooya guuba badanu waa hormud qaran iga hooya guuba badani waa hormud qaran muslimiintu hawshii walbiyo ficilka ay hayso hal ilaahay weeyaan waxay kaga hagaagane tawxiidka niman haysan baa guusha hoos maray tawxiidka niman haysan baa guusha hoos maray waxay maanta heestiyo murtidu igu hanaqanday waxay maanta heestiyo murtidu igu hanaqanday eeyaanu howlgalay maaha maalinaan helaye mar hadday hoggaankii taqwada midigto way hayso oon ilaah ku hoos jiro xaqana aan ku hiranayo hididiila dheer baan qaba guula waan helay hana qaadiyay caalankii wax badan igu hagognaye gobanimadiyaan haymin jiray maanta waan helaye gaadiidkii heeryada ka furay garabka holaye halkii aan ku waaday oo wenelif saartay hegada halkii aan ku waaday oo wenelif saartay hegadaye hareerigii wardheer baan badroolka harqaynayaye daharanka howlgelin hayaa jilhamun qabaye jarar baan ku howlanahayoon malabka horshaye harwanaagoday baan xornimo ku hambalyayaye
hilimada afdheeriyo ilaa nogob hareerteeda hareeriyo hawaasiyo jigjigan hela tumayaye shiniilaan ku haasawaya on hadhsanayaye ku hagaagay liibaan sidii ugu habboonayde ku hagaagay liibaan sidii ugu habboonayde hodankii dhulkaygiyo gayigan hibadu manshaysay ka huleeshay gaagaabtiyo wan hambooriyaye haldhabaalihiyo dhuumadkan halabsanaynaye haldhabaalihiyo dhuumadkan halabsanaynaye hinraafka liitiyo ninkii garasha hooseeyey heeryada gumaysigu ninkii ay garbaha hoshay keenadiyo hoggaankiyo ninkii dacayga loo heegay halalkoo shara looga dhigay hadiyad deeqantay haddaan dhaafaynin meel xun buu hoogay leeyahay haddaan dhaafaynin meel xun buu hoogay leeyahay runtii gabaygan aad iyo aad mataqaanaa u qiimo badan yahay waa gabay aad u fiican markaa nimco ma jirta mataqaanaa adigu ma abwaanad mataqaanaa gabayad oon tirisaa tahay mise buraanburkan waa isku yardayi kartaa maya buraanburka waa iskuma fiicnin laakiin haddii ay ugu kalifto waan qaadi insha allah heesaha baan yar isku fiicana inkastoon jeclahay inaa loo sameeyo dad qaado oon anigu sameeyo oon keliya waan gartay maxaa kuu kalifay marka inaad gabaydo ood mataqaanaa inta badan aad ka gabaydo halganka kolley waxaa layidhi dheriga karka ka keenay kuleelka karka ka keenay Soomaalidu dhihi jirtay anoo maanta ugu weynan dad badan oo iga waaweyn ama halganka wax badan soo waday ay jiraan oo dhalinyaro ah oo maanta aanan ruux waxyaabo badan inuu ka fikiraba aan gaadhin aan ahay haddana waxaa jirta bulshada reer Ogaadeynaya waa iska waaya aragtay u dhan yihiin sidee jirkooda haddii la weydiiyo waxaa laga yaabaa waxyaabo oday weyn oo na garanaynin inay garanayaan xanuunka dadka naga la ciilay iyo wadanka naga la haystay iga naga dhacan xanuunka iga hayo on baa igu keenay inaan wax tiriyo wax aboro okay waa mahadsantahay bal heesaha maxaad ma qashin kartaa iyagoo hal heesa noo qaad heesa maanta ma soo diyaarin laakiin gabayo un baan insha Allah waan ayagana soo diyaarin doonaa okay waxaa jira markaa gabay aad tiriso ma insha Allah gabaygaas muxuu ku saabsan yahay gabaygaas wuxuu ku saabsan yahay gayiga saan u jeclahay iyo saanan dhexdiisa ugu noolaan karin la iigu daadiyay suntiyo waabayda inaan dirar ku joogo mooyaan aan nabad ku joogi karin goorma tirisay 2015 baan tiriyay waxaan joogay meel markaas wadanka aan kamid ahayn baan joogay okay dhageystayaasha markaas gabaygaas maxaad naga maqashin kartaa gabaygan ku soo dhawaada insha Allah ma sha Allah mulkiga lahaa iyo gahiga layga manaacaye midigtu shisheeya oo galay galmadow badane macdantiisii bay dhooran hayaan gala midhanoye anigana masuugan qabiyo cilku igu maaxiye anigoo mililicahayoo sugaya maxnisa anigoon ka maarmayninon more kala haysan anigoo muraaqon hayoo jecel mushaaxiisa martibaan shisheeyaha kuwahay murugna idheere magaalooyinkaygiyo gahiga laygu murug sheegtay ee la isku maandhaafayee sidigta loo malo maqaar baa kufriga loogu wadhay loona mohon waaye mas-uul buu xumaatada oo yahay mudana loon doortay matadiyo hooyooyinku mooluqoodayaye maan laawihii iyo khaayinku milagaaliyaye dilaaliyo malaal buu ka yahay boobka matada afartaniyada mootaniyo mohosha weeyane afar kalana waan maganahay oon minanada malaayiin ogaadeen iyo migan baa jiraye oo libinta maamusayoo haysta maarinkiye
mugdiyo hameenkuma jiraan mudanayaashiye maansha alle gobanimayno matalayaane miyi iyo magaalaba bulshadu waa midnimo dooneen ninna maarma seexdee shaqu meesi ka hayaye mulatarigu waxay dharyihiin mudan diriirade mintid bay dhulkayga u yihiin geeshka maamulaye maqraatibay xaqayga u yihiin maraga goomjooge mas-uul bay wanaagga u yihiin hoyga maantadaye mas-uul bay wanaagga u yihiin hoyga maantadaye majaraha waxa ay noo hayaan hadaf ma guurane hillinku gumaysigu maray moosayaan weliye maasha alle gobanimayno matalayaane muslinka iyo gaalada naflaha maaligo waa muray ninba meesiba awgaarihiyo geeshu maamulaye muruqiyo nafiyo maalba waa loo mitiimiyaye ogaadeeyay maantiyo berriba magano waa ceebe mayalabagna waan haysanaaye mahad ku warooyin mareeyaha hawshaad wadan waa la meeldhigiye kumintida xaqeeni cid kaleyaysan maamuline magawdaye hasheeni waryanka waa lagu malin inagoon maqnaayaan cid kale lagu masariifin waan gartay nimco maxaad kula dardaarmi lahayd shacabka Soomaalida ogaadeen halkan ka dhageysanaya haday yihiin shacabka iyo waliba haday yihiin mataqaanaa tooriyaasha iyo maxaad dadkeen kula dardaarmi lahayd dadkeen waxaan kula dardaarmi lahayn oo kula dardaarmi lahaa waxaan nahay ummad muslim ah haddana dad la gumaystaan ahay oo wadankiisii iyo dadkiisii iyo dalkiisiiba dhac lagu haysto iyo diintiisii intaba dhac lagu haysto waxaan kula dardaarmi lahaa maanta wax badan baan halgan ka soo wadnay sanado badan oo aad u fara badan baan soo wadnay laakiin hadda waxay u egtahay markii ugu dambeysay iyo meesha ugu fiicneed inoo marayo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay mar dhowba aan xornimada helo laakiin waxaan kula dardaarmi lahaa gobonimo aan loo dhimanin inaan la hadhsanin laguna maxaan ku dhahay istareexin inaan meel aadan adigu samaysanin inaadan degi karin oo dhibka iyo hadda rafaadka aan qabno waxaan kaga bixi karno ilaahay aan tawagal iyo muraqeeno oo aan adeegsano on kaliya inuu yahay iyo sabir badan oo loo sabro wax kasta oo kugu imaado daawadayaal wali waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijyadii cawayska Ilays TV haatana qadar yar aan ku yeernasano qasiida nabi amaanaha محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد وحو ألف يري الدنيا ذواب بلا شو ضويل ويو دور كالو رغاي إله توابه نوتوسي تلضان محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد وقال وإمامك أنبياء الله أسأل ويو أنور بلغ أبور بخيار ويو إلهي وأماني اللونوكي حبيبك وكنو قبي محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد وقال وإمامك أنبياء الله أسأل ويو أنور بلغ أبور بخيار ويو إلهي وأماني
الله نوجي حبيبك كنا قبي محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد وحي بيتري بسنك العسك دايو بسم الله ذو باللوغي دين توي بسم الله الله نرنق بري محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد تريق ويا تبدت انتي فرحان الله حتى جرن كي تلدي سير كي تقدر انا ذا تاغير سيه تلمن قرصان حبيبه وهيدي تغيني محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد وحوتيم يري إلهي با جليلو سنغا وحتى قال كي دينته وجهيسته جعل هذا الرسول نبي جاهي سدقونو والله جبرنا يجدكي نبي مريم محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد من مله إلهي با حليليو حقيقي بعد الكيبو كلا حليو إلى حرمتي سنار هاي نقع حرية حسوسنا ذو حبيبك كل جعلادا محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد وحي حيتري إلهي با حليمو حقيقة ذو حبالها إن انتقيني أحقي واجد حسوس تيسي كتوصل محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد خيبو وذيو كفرتي بو خربيو كي حاسد كيبو ولا خشفيو ختم الانبياء الرسول كله خليفه الله خلق الدلو انه خالص يلي محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد وقال ايوا امامكي انبياء الله اصل ويو انور بلغ ابور بخيار ويو الهي باماني الله نوجي حبيبك كنا قبي محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مرتضانا يا محمد وحي بيتري بسنك marka la rabadaan kariim ayaan idin leenahay daawadayaal meel kasta oo idin daafaha caalamka ka joogtaan haatana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad waraysiga aan la yeelanay hogaanka arrimaha iyo abaabulka jaaliyadka jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya mudane Daahir Xasan Guuleed waraysigaasi oo kaga hadlay faragelinta Itoobiya iyo arrimaha Soomaaliya iyo waliba saameynta ay ku yeelatay dekada Berbera kulanti wacan oo wanaagsan mid lahaantiin baa khiyaarta hawada magaalada socota ay ku soo dhawaada qaybtii saddexaad waraysigii aan la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka hogaanka abaabulka iyo arrimaha jaaliyadka jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeniya ahna kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dhinaca geeska Afrika u qaabilsan jawxo halgame Daahir Xasan Tamuuje qaybihii hore waxaanu ku soo qaadanay inta badan dadaalada iyo waliba dhibaatooyinka kala duwan ee gumaysiga Itoobiya oo ku hayo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaana sidoo kale aynu si qoto dheer uga soo hadalnay waraysiyadeennii hore dadaalka Itoobiya ay ku doonayso in ay dalka Soomaaliya guud ahaan isaga horkeento bulshada ku dhaqan sidoo kale waxaynu qaybta ugu dambaysa ku soo qaadan doonaa haddii rabbi qadaro bal hadda gabadh fallada iyo waliba dhibaatooyinka joogtada ah ee Ogaadeniya ka jira dekadii magaalada Berbera oo ay Itoobiya ku yeelatay qayb maanta aan la dhayalsan karin taasi oo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed warwar iyo walaac ku abuurtay oo hadda ugu dambeyn markii saddexaad aan soo dhaweeyo mudane Daahir soo dhawow mudane aad u mahadsantahay waa tahay aynu si guud galno barnaamijkeena ee sida aynu ka warqabno bishii ina dhaaftay Abriil bartamaheedii magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya waxa ka dhacay shirkaasi waxay ku sheegtay maamulka wayaanuhu in lagu heshiiyay ay ka heshiiyeen maamulada Soomaalida iyo kan Oromadu
dagaal dhiig badan ku daatay oo dhex maray kaasi oo aan la sheegin sababta keentay cidda ka dambeysay iyo waliba waxyaalihii ka dhashay balse marka la fiiriyo qaabka heshiisku uu u dhacay waxaa muuqanaysa in dagaalkaasi dusha loo saaray qoladii Soomaalida ahayd in lagu xukumay inay wareejiyaan 147 deegaan oo kamid ah deegaamadii 2004 wixii ka dambeeyay dhismay ma aha yani inta badan deegaamadii 2004 sidoo kale loo wareejiyay ma aha waa deegaamadii wixii ka dambeeyay 2004 dhismay oo qaarkood ay noqdeen magaalooyin waaweyn waxa ku jira magaalooyin hore oo waaweyn oo ay kamid yihiin Jinacsane iyo maxaan ku dhahdaa Tabaabili iyo Nageyle iyo magaalooyin fara badan oo kale oo waaweyn oo wali muran ka taagnaa balse waaga horaan la xukumay in loo wareejiyo oromada ay qaataan oo kale haddaba heshiiskaas marka la fiiriyo Soomaalidii waxay dusha u ridatay dhamaan wixii ay lahaayeen dhacay waxaana la xukumay in la wareejiyo maxaan ku idhaahdaa 147 deegaan sidoo kale waxaa la xukumay bixinta magtii dadkii oromada ka dhintay فهذا arrimahaas maxaad kala socotaan oo aad joogtiin bismillaahir rahmaanir rahiim horta jaa waxaad ogaataa Ethiopia nidaam dadkeeda ay ku guumeysatay dadka Soomaalida ah ee ogaadeen ay ku guumeysatay ayay samaysatay laakiin ilaa hadda kuma qanacsano dadka in Ethiopian yihiin laakiin heshiiskii nidaamkan u dambeeyay uu ku yimid wuxuu iska ahaa waad ku waaraysaa kursigan haddii aad shacabkan Ethiopian inay yihiin horta kolka hore nooga dhigto marka waxaad moodaa in uu ku guuldaraystay dadkii inuu Ethiopianiyeeyo waa aragtay dhaqankii baa laga dilay diintii baa laga dilay qaraabanimadii baa la dilay gumaadkii iyo dhibaatooyinkii hore ee gabadfalka ahaa ee wax walba ahaa hore sii jiray ya hadana waxa laga la dagaalamay intaas ilaa dadkii daayartaha ama dhashay 12 sano u dambeeyay 20 sano u dambeeyay la qaasiyay Ethiopian yihiin marka waxaad moodaa Ethiopia inay ku fashilantay inay dadkii Ethiopianiyeyso isaga iyada iyo nidaamkii ay meesha geysteenba inta markay dhacday maxaa xiga waxa xigay Ethiopia waxa la dagaalamay jabhado fara badan oo qoomiyad kasta leh oo ay ku ka tahay ururka ONLF waxa sameysmay ururo alliance oo isbahaysi ah oo oromadu ku jirto oo ay ku jirto yani ay ONLF ay hormuud ka tahay xoogagaasi culays fara badan ayuu Ethiopia soo saaray xaq ciidan iyo xaq siyaasadeed iyo xaq media iyo dhan walba waxaan mooday in culays badan uu saaray wada ogaadeen kacdoomo fara badan ay meesha ka dhasheen wada ogaadeen dad badan ay la gumaaday oo hawo badnaan qoomiyadda oromada iyo amxaaradu ma suurtagal ma ahayn meesha oromada ogeey dadkii ugu jilicsan Ethiopia ahayd inta ka mudaharaadaysay shakhsiga Soomaalida ogaadeenaya oo dhibanaha weligii soo ahaa inuu mudaharaado taana waxaad garanaysaa meesha la gaarsiiyay ayaa ahayd meel uu ka soo noqon kareynin taasi markay dhacday Ethiopia wajiyaasha kale isticmaalaysa marka waxa kamid ah inay isku dirto labadii deegaan ee dadku iskugu dhawaa waa la isku diray waa la islaayay waxa islayna ma aha qowmiyadii oromadii Ethiopia waa nidaamyadii liibolisiyada ay sameysay oo mid walba markuu qoriga soo qaata laga dhigayo inuu kana Oromo yahay kana Ethiopia yahay dadaal badan bay ururka ONLF iyo ururka oromadu maadaama ay dana badan ka dhaxayso oo waliba dadka oromada soo xiga ay diin iyo dhaqan iyo wax badan ka dhaxeeyo isku dayeen in ay idaacadahooda iyo meediyahoodana aad uga hadleen in dadka waxaan u yihiin wax gumeysi oo wato oo la rabo in shacabkan laga jeediyo kacdoonadii Addis Ababa iyo magaalooyinka waaweyn ka jiray in lagu jeediyo Soomaali iyo Oromo islaynayso horta taas oo koow yaa ugu culus hadda arrinta soo cusboonaatay Oromo oo kacdoonsan waxa lagu raali gelinayaa marka in la yiraahdo degmooyinkan faraha badan baan Soomaalida idinka soo gooynaynaa magteena waa la idin siinhayaa waxa wadana waa nidaamkii Oromada ahaa ee dawladda Ethiopia u shaqeynayay shacabka waxaan aaminsanay 180 inaysan lug badan ku lahayn laakiin shacabku sida kuwan ay dhiban yihiin kuwan Soomaaliduna iyagu maanta hadii la yiraahdo jigjiga ama dhagax buur ama qabri bayax ama kuwa kale u soo xigaba hadii maanta la yiraahdo waa la bixinayaa waxaan ma diidi karaan waxna ma yeeli karaan yani waa xaqiiqda dhabta jirta waxa weeye maanta waxa lagu raali gelinayaa kacdoonka iyo xooga faraha badan ee Oromo iyo Amxaari iyo ay ka wadaan magaalooyinkii waaweynaa iyo siyaasadda midaysan ee dibadda ka jirta oo aan la hormuudka ka tahay in lagu weeqo oo la isku diro dadkan ayaa horta koow ka ah sida darteed waa ogeed mar hore mar kasto gacan gaadho waxbay sameeyaan afartaad ogeed ber dhaxdeeray in degmooyin badan loo xukumay haddana sidii oo kale weeye dalku ma tagayo dhulkuna ma guurahayo waxaana isleeyahay haddii dadkii xaq u lahaa ay gacanta waxan ku dhigaan waa waxay ka heshiin karaan
dhul Soomaaliyeedna Oromo ma qaadan karto dhul Oromona Soomaalina dhul Oromo ma rabto laakiin waa dad Ilaahay isbada inay daris noqdaan waa siyaasadda ay ugu talagaleen Ethiopia inay yanaha ku qaybiso dadkana ay ku sijilcso maanaha u aragtayda aan ku saleynayaa inay tahay waxyaalaha kacdoonada kor iyo dibad ka jirana waa lagu daminhayaa nidaamka jirana hada waa nidaam loo sameystay koobadanta leeyahay maanta hadii la yiraahdo dhuusan reeb weerar bari hadii la yiraahdo daroor weerar iyo hadaa doonto Hargeysa soo weerar hadaa doonto Balaweyn yani waxa weeye waxa un bay kamid tahay maanta in xagga loo wajaho oo lagu jeediyo waxa asal ku ahana waxa weeye in la abuuro colaad Soomaali melhidiya waan leeyahay in isku dilo marka u dhameeyay shacabka islaayaan waliina shacabku isku karla yihiin nidaamyadii laakiin waxa la yiri tana jilicsan oo waxba weydin dadkooda meel fog aan gaarsiinay aniga wax ka qaadna kuwana aan siino oo ku raali gelino si ay ugu dagaan waan gartay shacabka Soomaaliyeed dareenkiisu muxuu noqon karaa marka iyaga oo taagan maalin walba dhulkoodii la bixiyo oo la maalin shalay waxa la wareejiyay Baabil iyo Jinacsane darhad waxa la wareejiyay maxaan ku dhahay Gadmalo Cundufu Cadeey iyo deegaamo kale oo dhulka Anfarta lagu wareejiyay tii ka horeysay waxa la wareejiyay Mooyaale iyo Nageele iyo dhul ballaaran oo kale oo Soomaaliyeed la wareejiyay dareenka shacabka Soomaaliyeed ee wali hooseeya ee aan xitaa muujinayn dhiidi yani dhulkoodii oo maalin walba la bixinayo bal ka warantaas waa runta waxa weeye shacabku runtii waa dhibanaya maantana waxa weeye shacab la gumaysto oo dhibaatada ugu sarreeyay ee bani aadam la gaarsiinayo wax ka soo qaad male maxay waxa u sameyn waayeen laakiin waxaan isleeyahay wali gudnimadii bay aqbaleen marka shacabka nacam way aqbaleen marka aqbalitaankii baa laba oo mid adiga dooratay iyo mid xoog kaaga yimid ah waxaad garan karaysaa taariikhda islaamka marka dib u eegto nimanka la dhihi jiray Tataariinta ee Mongolia ka yimid Ruushka korkiisa Baghdad bay qabsadeen Baghdad markay qabsanayeen heer waxa la gaaray shakhsiga gaaban ee Mongoliga oo intuu 500 oo muslimiina waxay u yiraahdaa baangadan ku leyn lahaa isoo qaada oo dhigu Baghdad qulqulo yani way ku dhiiran waayeen kadibna maxaa dhacday hada wixii dhacay yani dadkan anu waxaan isleeyahay waa in way kici doonaan markay kacaana dhulkooda hana lama haysanayo gumaysina ma sii haysanayo maanta duruufihii ku xeeraa iyo isku halayntii mujtamacii weynaa ee Soomaali weynaha ee dhabarka ku hayeen oo dhabarka ka soo toogtay iyo cadawga u jeedeen maxay ahayd xigmadii ahayd alwaraa maxay ahayd albahru amaamakum wal adu waraakum ti ahayd ba haysato waxa weeye badiina way ka horeysaa cadawgiina uu ka dambeeyaa sidaas baa la dhaxla loo geliyay marka waxaan isleeyahay laakiin maamul goboleedyada jira ee Soomaalida ee awoodaha yar sheeganaya iyo dawladda Djibouti laftigeeda yaan anigu waxaan hubaa inay qayb ka ahayd maamuladii la siiyay degmooyinkii saddexda iyo ka badan ahaa ee la siiyay Anfarta inay qayb ka ahaayeen maamulka Djibouti oo kamid ahaa isagoo kursiga inuu ku soo noqdo qabaa'ilada Djibouti daga qayb kamid ah uu kaga raadin hayay in Anfartu ay cod badan siiso ayuu wuxuu ku duudsiyay reer meesha degan markaana dhul Soomaaliyeed bixba inuu islahayn baa dhici kartay uu leeyahay reer hebel malaha way ka soo horjeedaan kuma taageersanay dhulkooda ku cadaadi dhanka kama maqano in colaad qabiil la abuuro iyadana waa sidii laakiin gudihii weynaa ogaadeenaya hada wada ogtaa cid hadlaysa maanta ma jirto qisaska dhacay la yaab kala waxa kamid ah nin qurbaha ka tagay baa ii sheekeynayo aabahay baan u tagay ii warramay walaalkii baa ila soo istaagay iga weyneeda walaal ii warram waan u istaagay waan fadhiistay oo marka aan buri ii warram iyo aabahay saa ii buri yani ha u warramin marka aan kala tagnay kadib buri dadkan la isku ma haleeyay ha u warramin waa walaalkii hooyo aabana wada dhaleen yani dad heerka la gaarsiiyay iyo maanta mujtamaci marayaan laakiin waxaan isleeyahay way kici markay kacaana way inay saantii ay ku kici lahaayeen ay soo muuqata xaqiiqo dhaba ama xagga xamar ha ka timaado ama Hargeysa ha ka timaado ama Djibouti ha ka timaado ama gudaha ogaadeen ha ka dhalatay oo ugu xoog badan weligeed bataagnaydaana way dhalan marka ay dhashana oromadu dhulka ama haysan karto Anfarna ma haysan karto cadawgii weynaa hadda iska celiso waxaaga waa lagu siinaa marka adiga wax noqoto waxaaga lagu siinaya laakiin nidaamkan jira waxaad u garanaysaa waxa la yidruuga hooyadii cunimo habartii baa uga reynaya waxaad garanaysaa maamuladii away ku xigeenadii nimankii madaxweynayaasha ku xigeenada ay sheegayeen inay kaleelka ka shaqeynayo dhan mid walba ka mid la soo afduubi wasiiradiisii sababa aan jigjiga gaari karin yani waxa soo dhan waa wax laga shaqeynayo kana dhabarka laga taabanayo yani kaasi waa in loo abuuro wax mar walba markuu maalmadego wuxuu xiisad laga yeer horkeen isla gudihii ah oo uu ku dagaalamo oo ku dhibaateeyo wax
markaasna dadkii iyaga mar walba waxyeelo u ah taasaana sababtay runtii in ay inta badan ay dhibaatooyinkan dhacaan dadku gunnimo way ku jiraan laakiin waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol gunnimo iyo xaggooda ka timnehe waa gunnimadii dhibka cadowga uu keenay ee wali damiirku inuu jiraan aaminsanahay waan gartay qaybihii dambe ee waraysigana ayaynu ku sii siqaynaa dhowaan magaalada Berbera dekada ku taala waxaa lagu wareejiyay hay'ad ama shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka oo la yiraahdo DB World heshiiska shirkadaasi waxaa la yiraahdaa waxaa ka dambeysay dawladii Xasan Sheekh Maxamuud waxay doontaba soo marto hadda Dubai waxaa lagu wareejiyay dekadii Berbera iyada iyo maamulka Soomaaliland buuna u dhaxeeyay heshiisku laba maalin kadib maalinkii la wareejinayay aan ilaahda wasiirka ganacsiga ee maamulka Soomaaliland wuxuu sheegay in heshiiskan ay Ethiopia qayb ka tahay runtii waxaynu ognahay ilaa iyo 2000 iyo maxaan ku yiraahdaa to afartii wixii ka soo bilowday Ethiopia dekada meesha la yiraahdo Berbera way isticmaalaysay jid la yiraahdo Berbera corridor bay tilwaan sameynayna oo wajaale iyo u dhaxeeya inta Berbera u dhaxeeya waxba kama hirgelin maanta dekadii Berbera qayb laga siiyay oo leeyahay waxay ku yeelanaysaa boqolkiiba 19 saameyn intee la eg ayay yeelan kartaa arrintani maxaase loo qaadan karaa in Ethiopia oo banaanka iska joogtay boqolkiiba 19 ay ku yeelato dekadii Berbera shacabkii Soomaaliyeed iyo dawladii Soomaaliyeed oo indhaha ka dhawray runtii waa arrin aad murugadeeda u leh arrin aad looga naxaway laakiin taariikhdan dib ku yara celinayaa haddaan u maleynayo su'aashan oo kale inay igu imanayso waxaan document ayaa jira arrintan ku lug leh oo runtii aan hayay waxa jirta oo aan helay January sanadkan dhaxdiisii dekada Berbera kaliya ma aha dawladda Imaaraadku saad ogtahay Soomaaliya badweynta Hindiya iyo baddi casayd baabul madab intiba marinka cirka iyo dhulka waxay u tahay istiraatiiji arintaas waxaa soo baxday hadii dekadaha Soomaaliya la dhiso in Imaaraadku uu ku kacayo oo dekadihiisu meeshay ku yeelaan ay ka munaasabsan tahay dhaqaalaha ay ku burburayso sida darteed Imaaraadku istiraatiijiyada waxay qaateen in dekadaha Soomaaliya dhan ay maamusho dekadahaasi waa disable inay ka dhigto ma aha inay shaqeyn doonaan inta badan waxa weeye in dekad iyadu maamusho waxay doontaa ka soo laakiin si ay dekadeeda u jirto kuwana ay lacag siiso taana ay u shaqeyso marka laga reebo dekada Boosaaso oo maraakiib intay weynayso ay rabto inay maraakiib containerada faraha badan ee ku xidhan waaya meesha in halkaas ay kaydahan u sii joogaan waxa jiray haddaba marka waxay u tagtay runtii aan ognahay inay heshiis Eritrea Djibouti ay la gashay kolkii hore DBO shirkadaasi ay heshiiyeen markii la heshiiyay kadibna Djibouti ay ka gaday ay Djiboutina dekada yar yar Chinese ku sameeyay Imaaraadku way diideen waxay yiraahdeen ma ogolin in dekada laga sameeyo Djibouti heer maxkamadda la isla maxkamadda adduunka Djibouti bana loo xukumay Djibouti waa dawlad ha yaraato laakiin xaqeedii inay raasatay ku dooday waxay ogaatay inay xaq u lahayd inay dekad dhisan karto dekadan baa ka gadan tan kama gadin tan ana hadda dhistay iyadana waxay tiri wax dekad la dhisi karaa ma jiro kadib waxa loo xukumay Djibouti Eritrea ayay u guurtay Eritrea ayaa waxay ku tiri Ethiopia idin heshiisinaya intaas oo lacag ku bixinaya iyadana way ku guul daraysatay waxay u wareegtay dekada Berbera dekadii Berbera sidaas ay ku timid heshiiskaas la galay si sharci ahana dawladda dhexe inay saxiixda mooyeen dekadaha iyo arrimaha noocaas maamul goboleed ama maamul isagu hadda raba inuu go'o midna ma fulin kara arintaas waxaan isleeyahay dad u jilcay hungurigaas dhareerada ay qaadan hayaan ama kolka horadaba aan wadaniyadi ku jirin oo madaxdii Soomaaliya kamida ayaa qayb kamid ah oo jamhuuriyadda Soomaaliya kamida sida ayaana heshiis lagu la galay Imaaraadka lacag baa laga qaaday aanu reportkan hayay 22 mar horena meelan ka sheegay dad baana aad iyo aad runta arintaas iyaga hor yimid oo yiri ma dhici karto 22 Ethiopia share ku leedahay ayaan xogteeda hayay hadda alxamdulillah ma kala fogo kulli 19 baa soo cadaatay inay tahay dekadaasi sidaas ay ku tagtay dad Soomaaliyeed baa lug ku leh oo aan dad ummadda Soomaaliyeed u daneynaynin ee iyaga danaysan haya kuwa Soomaaliland ee ku jira ee maamul ee qayb kamid ah heshiisyadana waa ka ogaay Soomaaliland ay diiday oo dekada diiday oo base military diiday dad badan oo shacab iyo dad maamulkaaba ay diideen laakiin kuwa jamhuuriyadda Soomaaliya kamid ka oo kala una yaa horta nidaamka ku jira intaas waxa dheer base military-ga waa tii iyadana meesha la keenay base military-gu Ethiopia diiday wadamo reer galbeed soo galay inayna khatar ku ahayn waxaana la rabaa in dagaalkan Xuutiyiinta
yaman ka socda in base looga sameeyo Ethiopia damaanad baa loo qaaday ah in berbera ilaa dirdhaba inta u dhaxaysa laami loo dhisayo damaanad buuxdan la siinaya inaysan wax ciidamada Carabeed meesha imanaya aysan ku aynan wax dagaal khatar inay kaga iman kareenin laftigiisa kaasi maamuladii hore ee Soomaalidu qayb ka ahaayeen sida la xaqiijinayo boobka Ethiopia ay boobayso in ay dekadaha Soomaaliya iyo kheyraadka Soomaaliya qaato bayna kamid tahay shacabka reer Somaliland iyo shacabka Soomaaliyeed iyo maamulka iyo baarlamaanka Somaliland waxaan u sheegaynaa arinta inay ka aad iyo aad uga digtoonaadaan khatartaana marka u dambaysa iyagu ku soo noqon doonto marka waxyaabaha aan sharciga ahayn xaq bay u leeyihiin inay difaacaan inay iska difaacaan oo dalkooda iyo kheyraadkooda ay runtii u guntadaan ayaa muhiim ah waana sharci darro dawladda Soomaaliyeed iyo mid maamul goboleed midnaba inay cadawgaagii ay siiso cadawgoodii ay siiso arin inta leeg iyo sheer inta leeg sabab ay kaga bedelanaysan Ethiopia inay sheer ku yeelatana sabab ay ku yeelan kartaa maba jirtaba ana ham nabadgelyada ma xukunto sabab ay ku yeelatay ma garanayno kaama gadano sida imaaraadka lacag kuma siinin marka arintaana waa arin khatarteeda la runtii waan gartay ugu dambaystii marka aynu inoo hadalkaasi tixraacayna waxa jira maalin ka hor waxa soo baxay in dhul ay Ethiopia siisay ama dhisme ay siisay Ethiopia maamulka Somaliland lagu sheegay xafiiska diblomaasiyadda Somaliland dhawaan madaxweynaha Soomaaliya markii uu booqday meesha la yiraahdo Addis Ababa Xayl wuxuu sheegay in ay ixtiraamayaan tixgelinayaan qadarinayaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed maxaa marka keenay bas la dhihi karaa iyadoo shalay dekadii balbaasaalay toon laga siiyay in maanta waxaan ku leeyahay Ethiopia ay dhisme dhan siisa maamulkii Somaliland miyana fargelin ku ahayn qaranimada ummadda Soomaaliyeed runtii waa fargelin cad weeyaan laakiin in la qariibsada ma aha maxaa yeelay Ethiopia waxay aaminsan tahay in wax dhanba iyadu leedahay maxaa yeelay manhajyada waxbarashada ka dhigtay Ethiopian idaacadihii bay kaga hadlayaan afka Ethiopia dalkana qofka Soomaaliga ahna maanta inuu qof Ethiopian wax siiyo sharaf waad moodaa inay noqotay marka waan arin khatarteeda leh sharcina ma aha malka dhacna waxay ku tahay runtii arintaas waana tii hadda aan ka hadlaynay oo ah in ra'iisul wasaaraha Ethiopia shalayna uu yiraahdo Soomaaliya waa mid haddana uu yiraahdo diblomaasiyad xafiis oo safaaradeed baanu ka furanaynaa Hargeysa oo Somaliland baa dhulna siinaysa dhulkana Somaliland waxa weeye sharci in lagu bixiyo weeyo Ethiopia sab loo siiyo male heshiisyada uu sheegayana iyo waxyaabahan uu ka hadlayo dhanna waa waxa isburinhayo wuxuu og yahay isagu soo aaminsan yahay in waxan maanta ay Soomaaliya gacanta ku hayso dhan uu yacnaha isaga uu awood u leeyahay inuu sameeyo laakiin waa mid aan u baahanahay inaan ka digtoonaano dawladda dhaxan ay ogaato maamul goboleedkaana uu ogaato waxana aad miisaanto waxan in wax dadkii shacabku u leeyahay khatarta ka iman karta in la ogaado arintaas muhiim ah Ethiopia waxa weeye wax kale ku sii darsanaysa ma aha kaliya dhul Hargeysa laga siiyay marka damban hadii aan hay laga oranin xamar bay dhahaysaa sidii ay ugu dhiiratay wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxtooyada in ay qaato saldhig ka dhigato iyo meelaha halbowlaha u ah ee wadanka sirtiisa ee xogtiisa ee wadanka yacni laga ilaalin hayo aan leesleeyahay in adowgu aad iyo aad looga difaacay ahayd inay galaan bay rabaan oo gudaha galaan taan bayna kamid tahay واتاي خيارتا هودا meelaha socota qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay waraysigii aanu la yeelanay gudoomiyaha ku-xigeenka hoggaanka abaabulka iyo arrimaha jaaliyadka sidoo kale ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalalka bariga Afrika u qaabilsan hoggaanka arrimaha dibadda ee Jowhar intaasi ayaan ku soo afjaraynaa waxaana aad ugu mahadcelinayaa mudane Daahir Xasan Tamuuji oo isagu xoga badan nala wadaagay tan iyo barnaamijkan mid lamid intaan sugu imaanayno waxaan leeyahay nabadeed iyo nooli kulantay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo guud ahaanba barnaamijkeena Cawayska Ilays TV intaasi ayuu noogu dhan yahay waxaan idin la socodsiinaysaa anigoo Hayaan Maxamed intaan mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tageynaa sida iyo is arag dambe